dowladda Soomaaliya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda ku sugan gudaha magaalada Muqdisho daafaha Muqdishona ciidan kale oo hor leh ayaa lagu daadiyay iyadoo laga hortegayo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ee ka socda gudaha caasimadda in uu sababo isku dhac ciidan iyo sidoo kale abaabulka ciidan laga cabsi qabo inay mucaaradka ka abaabulaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasiirkii gaashaandhigga maanta si cad ayuu u sheegay in sida al-shabaab loo zuuliyay afduubkii ay ummadda Soomaaliyeed u geysan jireen oo kale loo zuulin doono cid kasta oo isku dayda inay ka hortimaado dawladnimada Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay shir degdeg ah oo ka dhacay madaxtooyada qaranka waxyaabihii la isla soo hadal qaaday ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay tahay markay kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan meel dheer laga gaarsiiso saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula soo wadaagtaan haddii aad naga cusub tahayna nagu soo biirtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal sida aad ka warqabtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa isbedeshay hanjabaado kala duwan ayaa si rasmi ah loogu diray golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba mucaaradka ku sugan gudaha caasimadda kulan degdeg ah oo amniga looga hadlayay ayaa maanta Villa Soomaaliya waxa uu ku dhaxmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka amniga gudaha wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xubno saraakiil ah oo ay ka mid yihiin taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir nabad sugidda iyo laamaha kala duwan ee ilaalada shacabka ee dharcadka loo yaqaano ama ciidamada aan muuqan dhammaan kulankan waxaa diiradda lagu saaray intiisa badan amniga guud ee caasimadda iyo sidii ay u xakameyn lahaayeen dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo guud ahaanba golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay ka wadaan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kulankan degdega ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la qaatay saraakiishan ka hor waxaa maanta warbaahinta si aan kala sooc lahayn hadallo hanjabaado ah ugu jeediyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta oo dhowr su'aalood warbaahinta ay wax ka weydiisay ku tilmaamay in arrimahaasi oo edel gaar ahaan shirki ka dhacay magaalada Muqdisho ee burburay is-afaham waagana ku soo dhamaaday ay sabab u yihiin golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wasiir Axmed Macalin Fiqi maanta si rasmi ah ayuu warbaahinta ugu soo bandhigay qoraal bartiisa gaarka ah ee Facebook uu ku qoray isla daqiiqada ka horna ama raadiyay saacada kadibna waxa uu la hadlay warbaahinta isaga oo waliba si faahfaahsan uga hadlay arinta la xiriirta golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba xubnaha mucaaradka ah ee ku sugan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho arintan ayaa sababtay in mucaaradka gaar ahaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed qaybtood ay hadalkaas ku tilmaamaan hadal aan laga fiirsan sidoo kalena uusan u qalmin mas'uul Soomaaliyeed oo waliba dalkan horay u soo maamulay qaarkoodna hadda doonaya inay xilal ka qabtaan arintaas waxaa lagu sababeeyay ama hadalka wasiir Axmed Macalin Fiqi inuu yahay hadal aan ka fiirsi lahayn meel ka dhacna ku ah guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaalida ee siyaasadan dalkan wax badan ka soo qabtay wasiir Axmed Macalin Fiqi waxa uu cadeeyay in dawladda Soomaaliyeed loo dhaariyay mas'uuliyadda guud ee dalka ayna ka go'an tahay sugidda ammaanka guud iyo hirgelinta geedi socodka dimuqraadiyadda waxa uu sidoo kale cadeeyay in dagaalka uusan ku koobnayn oo kaliya kooxaha khawaarijta balse sidoo kale ay iska celin doonaan cid kasta oo carqaladeynaysa doorasho qof iyo cod ah oo dalkan la filayo inay ka dhacdo ujeedadu waa qabashada doorasho qof iyo cod ah oo shacabku si toos ah u doortaan hogaankooda ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa taasi oo hanjabaad toos ah sidoo kalena ku tilmaamay madaxdii horay dalkan u soo maamushay inay yihiin dad doonaya dawladdu inay dumiyaan sidoo kalena waxa ay dalka ku hayaan uu yahay waxaanan la aqbali karin waxa uu yidhi Axmed Macalin Fiqi waxaa la ciribtiray sidoo kalena la tirtiray afduubkii kooxda khawaarijta ahaa ee ay u geysan jireen ummadda Soomaaliyeed waxaase xusid mudan in la tirtiri doono qof kasta oo isku daya in uu u afduubnaado masiirka guud ee dalka haddaba su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay yuu masiirka dalka u afduuban yahay ma dawladda hadda dalka ka talisa ama golihii mustaqbalka Soomaaliyeed ama xubnihii mucaaradka ee dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu diiday in lala hadlo sida ay sheegeen golaha mustaqbalka war-saxaafadeed ay soo saareen laba ajande oo waaweyn ayaa la hordhigay Villa Soomaaliya kaasi oo kala ahaa arinta doorashada saddexda maamul ee muddo dhaafka ah ee Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug iyo sidoo kale aan iraadey saddexdaasi maamul oo la tilmaamay inay muhiim tahay inay doorashooyinkooda qabsadaan
si looga baxo muddo dhaafkan sidoo kalena loo gaaro heshiis siyaasadeed oo laga gaaro weliba doorashooyinka soo aadan 25 May 2026 sanadkan aynu ku guda jirno. wasiir Axmed Macalin Fiqi marna ma soo hadal qaadin dowladdan inay ahayd dowladdii ka horeysay mid si weyn u mucaaradsaneyd oo weliba waxyaabihii la doonayay in dalkan ay ka qabato ay iyagu laftarkooda ka soo horjeesteen oo xitaa inta ay xoolo qaateen kadibna ku dul qoreen 1991 taasi oo la micno ahaan ay u dhigayeen xilligaasi in Soomaaliya haddii aan laga gaarin u noqon doonto 1991 waa xilligii ugu xumeed ee ay Soomaaliya soo marto lagana soo kabtay ilaa iyo haddana dowladnimada Soomaaliya ay ku jirto qori isu dhiib sidoo kalena xukunka dalka aanan lagu heshiin iyo siyaasad salkeedu aanan fadhin oo siyaasiyiintii Soomaalidu marba midka kursiga tagaa uu ku macaashayo. haddaba guud ahaan hanjabaadaasi oo idil waxaa shir jira Muqdisho ku qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Al-Cadaala. su'aalo dhowr ah ayaa la weydiiyey wariye la afduubtay amniga guud sababaha keenay in shirarkan jiraa'id xilligan ay ku soo aadiyaan xilligii ilaa iyo shirka uu socday ee uga hadli waayeen ka wasiir ahaan kuna sheegay in xukuumaddu iyo guud ahaanba dowladnimada ama dowladda Soomaaliyeed ay diiradda saarayso qabashada waxa ay ugu yeertay doorasho qof iyo cod iyadoo dadkii qaban lahaa qaarkood lagu afduubanayo gobolada dalka sida Buulaburte oo lagu haysto 3 xubnood oo afduub ahaan looga kaxaystay guriga gudoomiyaha degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. guddiga lagu munaasib yahay ee doorashooyinka dalka ayaa ku adkeysanaya qabashada doorashooyinka golaha deegaan ee 3 maamul ee muddo dhaafka ah ee 3 sano afka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku jooga ee Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo umuurahaasi oo dhan diiday iyo sidoo kale golihii mustaqbalka Soomaaliyeed oo qaarkood ay ka baxeen gudaha caasimadda waxa ay keentay in shir degdeg ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isugu yeero laamaha ammaanka si gaar ah wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya, taliyayaasha nabad sugidda, kuwa militariga, booliiska dhammaantoodna waxaa la tilmaamay inay Villa Soomaaliya ku kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu qayb ka ahaa kulankan. waxaa diiradda lagu saaray oo guud ahaanba lagu amray xubnahan ka qayb qaadashada ammaanka guud kana hortagaan fal kasta oo laga yaabo inay mucaaradku soo abaabulaan ama golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyadoo siyaasiyiinta qaarkood ee ku sugan gudaha caasimadda wax ciidan ah aysan wadan dowladdana horey ay digniino uga soo saartay askar markaasi ku labisan hub culus iyo darees aan loogu talagelin oo weliba lagu carqaladeynayo ammaanka guud ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidan miyay sii ahaan doontaa bilaha soo aadan gaar ahaan marka la gaaro 15 May su'aalahaasi oo dhan ayay dadka shacabka ay isweydiinayaan laakiin kulankii maanta waxa amar lagu siiyay dhammaan taliyayaashu inay heegan galiyaan ciidamadooda qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Banaadir iyadoo daafaha magaalada la tilmaamay in la geeyay hub culus iyo ciidan tirabeel ah oo ka qayb qaadanaya sugidda ammaanka guud ee gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. ujeedka shirkan ilaa iyo hadda inkastoo aanan la sheegin haddana waxaa la werinayaa in dhaqdhaqaaq ay bilowdeen dowladdana ay soo saartay awaamiiro kala duwan oo ku aadan shacabka caasimadda iyo ammaanka guud ee caasimadda. wasiiradii ayaa afka furanaya Villa Soomaaliya waa iska aamustay tan iyo markii uu burburay shirkii ay la lahayd golaha mustaqbalka Soomaaliyeed goluhu dhankooda dhaqdhaqaaq ay wadaan oo siyaasadeed beesha caalamkana qayladhaan ayaa ka soo yeertay oo durba dowladdu waxaa loogu baaqayaa inay tanaasul samayso inkastoo tanaasulka uu adag yahay haddana ay muhiim tahay in la gaaro heshiis siyaasadeed inta aanan la gaarin muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dalka. wixii ku soo kordhaa umuurahani oo idil barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa idinka ayaan noqon doona dadka ugu horeeya xogaha seela haddii ilaa dhamaadkan nala soo gaartay nagu soo biir saaxiibada la sii wadaag muuqaalkan meel dheer nala gaarsiiya qaybta hoose ee faaladana aragtidina nagula wadaaga.